ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 28aad waa waalidkan baari u ahay. bar ilmahaaga xaqa waalidka nagu leeyahay adigoo adeegsanaya erayo fudud oo ku dhow fahamka ilmaha yar. Tusaale ahaan, waxaan ku bilaabi kartaa aqrinta aayadda Quraanka ku jirta ee sharafta leh. Eebbaha wuxuu xukumay inaad caabudo isaga oo keliya, waalidkuna wanaajin bay nagu leeyihiin ayay aayaddu macnaheedu tahay. Kadib waxaan bilaabi karnaa inaan u sharaxno aayadda si degan oo fahanka ilmaha yar gaarsiisan. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Waalidkan baari u nahay. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.